qaybtanii hore waxaynu marinay iyadoo gabadhii dhallinyarada ahayd ay weydiisay ninkii dhallinyarada adhi jiraha ahaa sida uu ku bartay akhriska. wuxuuna ugu jawaabay ninkii dhallinyarada ahaa sida dadka kale oo dhan, iskuullada ayaan ku bartay. laakiin haddii aad taqaano sida wax loo akhriyo maxaad adhi jira u noqotay? waxa weydiisay gabadhii dhallinyarada ahayd. ninkii dhallinyarada ahaa wuxuu rabay inuusan ka jawaabin su'aashan maxaa yeelay wuxuu hubay inaysan gabadhu si fiican u fahmi doonin. wuxuuna sii watay sheekada safarradiisii wayna la yaabtay sheekooyinkiisa. waxa uu arkay in wakhtigu si dhaqso ah u socdo wuxuuna jeclaa in maalintaasi ayna dhammaan. gabadha aabbaheedna uu ka mashquulo wakhti dheer uuna weliba ka codsado inuu 3 casho sugo. waxa galay dareen uusan hore u qabin kaasoo ah rabitaanka ah inuu ku nagaado magaaladan ay gabadhan dhallinyarada ahi degan tahay. sababtoo ah maalmuhu isku mid ma aha, balse ugu dambayntii ganacsadihii ayaa soo baxay wuxuuna ka codsaday inuu ka iibiyo dhogorta 4 neef. wuxuuna siiyey lacagtii wuxuuna ka codsaday inuu soo noqdo sannadka soo socda. ilaa iyo haddana waxaa ka xiga 4 maalmood oo keliya si uu u gaadho isla magaaladaas sannadkaas hore ay ugu horraysay ayna markaasi ugu dambaysay. wuxuuna ahaa mid faraxsan balse ka baqaya inay gabadhu ilowday muddadaas sannadka ah kadib. sababtoo ah adhiilayaasha imanaya si ay iyaguna dhogorta adhigooda u iibiyaan ma yara, balse isagoo adhigiisii la hadlaya ayuu yidhi, muhiim maaha ileen gabdho kale ayaan aqaanaa oo magaalooyin kale ku noole. laakiin qalbigiisa wuxuu ka yaqiinsanaa in la kulankeeda uu u leeyahay muhiimad gooniya, in adhi jirayaashuna ay yihiin sida badmaaxyada ama ganacsatada dhulmarrada ah, ayna og yihiin in ay jirto magaalo ay joogaan cid ku ilowsiisa raaxada ku dalxiiska adduunka. maalinkaana markii fallaadhihii ugu horreeyey ee qorraxdu ay soo iftiimeen, adhijirihii dhallinyarada ahaa wuxuu bilaabay inuu idihiisii u kaxeeyo jihada qorrax ka soo baxa. wuxuuna isagoo isla hadlaya yidhi, way iska kay dabagelaysaa umana baahna inay go'aan qaadato. uuna yara fikiray wuxuuna sii raaciyey hadalkiisii, malaha taasi waa sababta ay iigu dhowdahay mar walba. iyadoo baahida adhigu dareemaana ay tahay baahidooda baadka iyo biyaha, iyadoo inta ninka raaciga ahi uu kala yaqaano meelaha daaqa ee Andulus ugu wanaagsan. iduhuna waxay ahaan doonaan saaxiibadiis xitaa haddii ayaamuhu isu ekaadaan. xitaa haddii aanay idahani wax akhriyin nolosheeda yar ee gaaban, sidoo kalena aysan garanayn luqadda basharka ka sheekaynaya waxa ka dhacaya magaalooyinka, ida waxa ku filan biyaha iyo daaqa. taa beddelkeeda wuxuu ka helaa oo ay siisaa kan daryeelaya dhogorteeda ama suufkeeda, hilibkeeda iyo saaxiibtinimadeeda si deeqsinimo leh. haddii aan isu beddelo noole kale oo aan bilaabo inaan mid u gowraco, iyadu ma rumaysan doonto waxa dhacaya. kadib markay xaynta ku dhowaato inay baaba'do mooye, maxaa yeele way igu kalsoon tahay sababtoo ah waa aniga kan mar walba daaqa u kaxaynaya. haddana mar dambe waxa uu la yaabay fikradihiisa, waxayna ula muuqdeen wax qariiba oo ku cusub. haddana wuxuu naftiisa weydiiyey, kiniisaddan iyo geedkan weyn ee ka dhex baxay ayaa laga yaabaa in ruuxaani degan tahay ayna tahay sababta ay riyadani dib iigu soo noqotay. sidoo kalena ay tahay sababta uu ugu cadhooday xayntiisii adhiga ahaa ahna saaxiibadiisa mar walba daacadda u ah. wuxuuna ku adkeeyey jaakadii uu xidhnaa jidhkiisa, waayo waxa uu ogaa in qorraxdu ay madaxiisa dul istaagi doonto, cimiladuna ay aad u kululaan doonto, aanuna adhigiisa la dhex socon karin miyiga. iyadoo wakhtigaa lagu jiray oo ahaa xagaana uu jawiguna kulayl yahay ilaa habeenkii, iyadoo jawigu sidaa yahayna khasab tahay inuu jaakadiisa xidhnaado. markasta oo uu culayskeeda dareemana uu soo xasuusto in isaga dartii uu ku wajahayo qabowga aroornimada hore. wuxuuna isagoo naftiisa la hadlaya yidhi, waa inaan had iyo jeer diyaar u ahaanaa isbeddellada cimilada. kadib sannado badan oo uu ku dhex socdaalayay bannaanka Andalus, wuxuu bartay oo xifdiyey magaalooyinkii ku yaallay mandiqadda, waana arrinka noloshiisa macnaha u yeelay oo ah safarka. wuxuuna damacsanaa inuu kulankiisa xiga u sharaxo gabadhii dhallinyarada ahayd qaabka ay ugu suura gashay nin adhi jiro ah inuu yaqaano akhriska.
wuxuuna dhigan jiray ilaa 6 jirkiisii madrasad diineed wuxuuna bartay Laatiinka, Isbaanishka iyo Laahuudka. laakiin ilaa yaraantiisii wuxuu ku riyoon jiray inuu adduunka kala barto. wuxuuna maalin jawigu degan yahay mar uu ku socday inuu soo booqdo waalidkiis ayaa wuxuu aabbihii u sheegay inuusan doonin inuu noqdo wadaad diimeed, laakiin uu doonayo inuu safro oo uu dhulmar noqdo. wuxuuna aabbihii ku yidhi, wiilkaygiiyow, niman badan oo ka kala yimid adduunka oo dhan ayaa halkan yimid, waxayna soo mareen tuuladeenna. waxay halkan u yimaadeen iyagoo raadinaya waxyaalo cusub, laakiin sidii hore ayuunbuu xaalkoodu ahaadaa oo isma beddelo. waxayna inoo dhaafaan taagada sare si ay u soo booqdaan qasriga. waxayna ogaadaan in tagtadii ay ka wanaagsan tahay joogtada. waxayna isugu jiraan jinsiyado kala duwan, balse dadka tuuladeenni waxay u arkaan inay isu eg yihiin.